mar qura ah ayaan dareemay ereyadii ugu murugada badnaa ee qalbigayga soo gaaray. Inta uusan afkiisa ka dhammaystirin ayaana dareemay murugatii ugu xoogganeed inay soo socdaan. Anigu aad ayaan u jeclahay, muddo ayaan isla soconay, ku dhowaad 1 sano ayuuna xiriirkeenu wada socday. Markaas ayuu i dhahay, arooskayga ayaad ka soo qaybgalaysaa. Anigu 1 sano aan wada socon waa uu ii qosli jiray, aad ayuuna ii jeclaay. qosolkiisana waxaan mar walba ku qeexi jiray in uu aniga oo keliya u haysto, ay sidoo kale ay tahay hantida ugu weyn ee dunida uu ku faani karo. Laakiin markii uu i dhahay arooskayga ka soo qaybgal, istaaga ayaan ka dhacay. Taleefankii waa uu iga fakaday, xitaa sariirtii aan ku jiifay. Goor aan ka degay aniga oo shumaca galgalanaya ayaan arkay. Ilintu waxay ahayd mid aan celi karin oo dareenkayga aad ayuu u soo burqaday. Farxadaydu aad ayay u sareysay, laakiin waxaan galay jawi murug badan oo marnaba aanan filayn. Dhawaqa taleefanka marka uu soo dhacay, waxaan islahaa caawa waxa uu kuu sheegi doonaa ereyo farxad badan. Naftaydu uguma baran inay murugo oo mar walba u sheego wiilka aan jeclahay. Wuu iga farxi jiray, wuxuu ila wadaagi jiray jaceylka uu ii haayo. Habeeninka qaar waxaan u wada bixi jirnay casho sharaf. Waxa uu sidoo kale ii wadi jiray magaalada meelaha ugu shidan. Waxa uu dhihi jiray, xitaa haddii aan ku arooso oo ilmo badan xataa ii dhishid, sidaan oo kale ayaan ku wadayaa. Anigu xaaladda qaangaarka xitaa marka aanan soo gaarin oo aanan jaceylka garanayn, wuxuu ahaa ruuxii keliya ee indhaha ii kala furay. Laakiin markii uu i dhahay arooskayga ayaa ka soo qaybgalaysaa, aad ayuu wadnaha ii garaacmay. Waxaan dareemay in bini'aadan uusan aaminaad lahayn. Haddana naftaydu waxaan ka dhaadhiciyey in sheekadu ay barangi tahay. Waan weydiiyey, markaas ayaan ku dhahay, ma kaftan ayay kula tahay saaxiibkaygiyow? Ma aanan kaa filayn cawada inaa i dhihi doontid arooskayga ka soo qaybgal. Maxaa yeelay muddo sannad ah ayaan wada soconay. Habeen walba koolkeenu wuxuu ahaa mid wakhti badan wada qaato. Laakiin caawa waxaad ugu soo tala gashay inaad ogaatid inaan ku jeclahay. Waad iga murugaysiisay, qalbigayga waxaad gelisay ereyo aanan ka go'i doonin. Waxaad i marsiinay ayay dhahday tijaabo. Waxaan rajaynayaa tijaabo walba oo aad i marsiiso inaad guulaysto. Gabadhi sidaas ayay dhahday. Laakiin tijaabo maahan oo wiilku go'aankiisii saxda ahaa ayuu soo qaatay. Waxa uu doonayaa in gabadhii xiriirka halkaas uu ku soo qatimo. Gabadhi waxay ku heesaa, ma barangiyaa, miigu dheelaysaa, miigu ciyaaraysaa, ilaan waa naf wax jecel. Gabagabadu sheekadu wiilku wuxuu dhahay, inan yahay haniyey, hadalna yuu kaa tegin, oraaha badanna yaysan kaa tegin, ilintuna yaysan kaa dhammaan. Anigu waxaan diyaar u ahay xiriirkeena halkan inaan ku soo qatimo. Markaas ayay dhahday, aboowe ereygaas ay dhihin oo afkaadi yuusan ka soo bixin. Qalbigayga dhowr, waxaan ahay naf ku jecel. Waxaa tahay wehelka igu sareeya ee adduunkan. Maantu yaysan ku qaadin damaca iyo hablaha kale ee quruxda badan. Aniga ayaa kuu heelan, mar walbana aad ayaan kuu jeclahay. Waxaad ahayd ubaxa ugu sareeya ee niyaddan ka fiirsanaayo. Qalbigayga ha jebin, daryeel baan kaa sugaa. Dumar oo idil markaan arkane, rag oo idil sidoo kale markaan arko, adiga ayaa igu soo dhaco. Afki baa juuqda gabay, qof kale lama hadlo. Intaasoo rag oo dunida ku nool, adiga ayaan kaaga go'ay. Aaway 12 bilooda isla wada soconay oraahii aan isdhihi jirnay. Aaway sawirada quruxda badnaa aan isku diri jirnay. Aaway muuqaalkii quruxda badnaa aan ku wada sheekaysan jirnay. Caawa ma waxaad jeclaysatay wax walba inaad burburiso? Nolosha ayaa sidaas ah. Anigu
hubaali waan ku jeclahay mana kaa hari doono, laakiin waxaa u malaynayaa wax walbuu i dhahday inay tahay kaftan. Markaas ayuu dhahay, wax kaftan lah ma jiro, hadalka ugu sareeya waxay tahay arooskayga inaad ka soo qayb gashid. Anigu waan ku jeclaay, laakiin hadda candhuufteedii dib ayaan u laqay, jaceylkeennina halkaas ayaan ku soo qatimay. Waxaan kuu rajeynayaa nolol sare iyo hiigsi sare iyo qof ani iga fiican iyo nololaa ku qanacsan tahay. Gabadhii aad ayay ugu murugootay. waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. qisadan waxaa ka baraneynaa nafku jecel kalsooni kugu qabto haddii aad ka tagtid nafti kale aad dooratay maxaad kala soo kulmaysaa. qaybtii koowaad halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. waxaad ka daawanaysiin barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24. intaa mid noocan oo kale ah ku kulmi doono. nabadgelyo.